xukuumadda Soomaaliland oo si diiran ugu soo dhaweysay duleedka magaalada Hargeysa gaar ahaan dhinaca bari caasimada Salaadin Cuqaal Isimo iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Buuhoodle ee Soomaaliland kuwaasoo tiradoodu ay dhamayd 11 caaqil iyo 4 oday waxa hogaaminaya wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Buuhoodle halka qaar kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer ay ka soo galbiyeen magaalada Burco wasiirada wasaaradaha madaxtooyada hawlaha guud iyo ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaguna mas'uuliyiintaasi soo dhaweeyay ujeedada ugu weyneed ee maatinka salaadiintan ka soo jeeda gobolka Buuhoodle ee Soomaaliland ayaa salka waxa ay ku haysay sidii loo sii xoojin lahaa loona dardargelin lahaa nabadda gobolkaasi iyagoo kaashanaya xukuumadda Soomaaliland barasaabka gobolka Buuhoodle oo markii la soo dhaweeyay kadib ka hadlay ayaa yiri anoo ku hadlay afka gobolka Buuhoodle halkan waxaanu ku fadhinaa ismadiisa naga soo raacay uqaashi waxgaradkii dhamaan reer Buuhoodle cid ka maqna hadda halkan waxaanu la fadhinaa wasiiradii oo iyaguna naga horiyimi soo dhaweynteeda kelmadii ka yeelan doonaan soo dhaweyntooda in badan waa daalan yihiin taraag dheer bay soo galeen uqaashu iyo odayaashu كل ورك وين ودن بيا وزيرك وزارة عافيمات كي Soomaaliland دكتور سليمان عيسى أحمد حجلته سيا أي إيمانتك الصلادين تكون معني من لجود درجلين لجون حوشين النبض جوا الكاسي وحصود وين إنه عقاش بوهله وبوهله كسو عم ببحي هبين هراء الصعدة إن أي وحكة قبطان نبضه مشكلتها إيريا Buuhoodle ka taagan waxay booqashadooda iyo imaatinkoodu uu salka ku hayaa waqtigii caana shubkii shirka dhacay Buuhoodle oo isku arkeen salaadiinta iyo garaadada iyo cuqaasha beelaha kala gedisan ka soo jeeday waxa lagu heshiiyay in si buuxda loo dhameystiro nabadda ballantaas ayaa socodkoodu salka ku hayaa nabaddu waa muhiim odayaasha iyo oqaashana iyaga ah furaha nabadda waxaan ilaahay ka baryayaa waa wafdi aad u culus waa wafdi noociisani aanu hore u imanin Hargeysa waa wafdigii ay ka go'aysay nabadda iyo talada deegaanka Buuhoodle waxaan ilaahay ka baryayaa inay la noqdaan guul iyo in ay gaaraan hadafkooda nabadeed ee ay ku socdaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa soo dhaweeyay salaadiintaasi waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay markasta ay diyaar u tahay inay la shaqeyso cid kasta oo nabadda iyo isu soo dhaweynta shacabka Soomaaliland ku hawlan annaguna dawladahan way soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiina iyo dadkiina ku soo dhawaada nabadda iyo wanaagga iyo odayadu waxay la socdeen insha Allah taala waana ka gudoomayna waana ku galbinayna waa jecelahay runtii cidii wanaagga nabad ka shaqeynaysa haddii alla ka dhigo kulliba waynu wada fadhiisano wada hadlayo saarkii wixii duruuf iyo xaalad jiran iska wareysan insha Allah taala wixii suurtagal ah nabadda laga qaban karo arrimahan laga qaban karo waxa weeye mandaqadan insha Allah taala diyaar baan ka dawladahan wixii loo baahan laga qabto kulliba madaxweyne insha Allah taala wala kulmi doontaan waa arki doontaan waxaan leenahay dhamaantiin soo dhawaada hadal badan oo kale halka ka oran maayo wasiirka saaxiibkayga hore Salebaan baa halkan ka sheegay inay odayaashii ugu muhiimsanaayay yihiin waxa weeye mandaqada meesha joogay dabcan iyaga iyo garaadadii iyo odayaashii kale dhamaantood intii nabad iyo wanaag ka shaqeynaysa iyo intii waxa weeye wada waxa weeye wixii dhaqan ahaan jiray wada iyo intii horumar ka shaqeynaysa baanana waa soo dhaweynayna salaadiintan cuqaashan isimadan iyo odayaashan ka soo jeeda gobolka Buuhoodle ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee salaadiin cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi Buuhoodle oo intaasi leeg ay yimaadaan caasimadda Hargeysa waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ee fooday nagu soo haya ay kulan la yeelan doonaan madaxda ugu sareysa qaranka Soomaaliland